عادي أن رالي أن لقى أهين ضدكو هداد أركت إنه سرالي كاجا أهين سياسة هذا أما سيدا أدوجها ليسد حوجا إن أنا عيد أنا وما قعدتك وأركت سياسة بنك شكية وحي عير سدنا مرة وحن لقي عير سنين ضدك إقبل بنا وهاي ضدك لا شيء دي يقفت أنا شلون ضد البهنت وأنا وأنا لا يبقى كنت في والله القف البهنت إتو متكلمة حن إما ليك بكوس إما أوران كرو إيجا دفاعي كرو البهنت إيجا ما بهالكيان كرو وإلما أدرتي عرورتي ذا جرجان wada joognaa shalona waa kaftameynay halkaasaan meeg isu qaadanayna way ogeed habar nugaaleed xataa markaan lahaa caruurtan waa kaxaynaya laas caanaan geynaya anag garo waan tagaya difaac baanu kala xiranayna waxaas waa lahaa waxaas waa iska caad wallahi hal qof oo dhulbaanta intuu qof walba dibaash ku socay ijaabay buu saakadaana ku dhulbaanta isoo wacayeen oo ku qosqosleeno leenka inta isku soo xirteen dadku way ogyihiin qofka bil aadam laakiin ayadu gabadhaas gabar wanaagsan haday wanaagsan weeyaan laakiin siyaasad bay falanqaysaa siyaasad ay falanqaynayso markay aragtay in la dhibsaday waa inay iska daysaa hodan walaashay waxaan kula talin lahaa inay iska dayso haday dadkaani dhibsadeen inuu qof ceyrsado oo mar walba la jijiito oo ayadana sharaf uma aha dadkiina hadhowtay waa la isku dambaabaya dambiga inta tirada la egna waxaan wax lagu heliyo faa'iido ay jirin in la iska daayo oo qofku ka gaabsado oo wixii dhibaato nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri hadii aad aragtaan meel dambi ka socdo dambiga waa inaad suursan marka aragtid hadalkaagu inuu caadifad keenayo inuu dhib keenayo inuu dhibaato iyo dambi keenayo waa inaad ka gaabsataa oo aad raadisaa sidii kale oo xal ah oo wax kale oo xal lagu raadi karo idinkuna gabadhaas ciday doonta ahaato gabadha weydiida cideeda inay sheegto cid taqaana ma jirto cid raad in la raadiyo oo la daba galo ijaabo ay taqaantay ku tiri ijaabo aamina ay taqaantay ijaabo ay taqaanto ani ma aqaan ayada aabay hooyada iyo baqaarkeen markii la dhacay ani intiina sadda meesha joogta magac baad ila sheeganaysaan cidaa tiin baad ii sheegteen adiga umbaan cid aan maanta garan karo oo maanta aan dhihi karo waa la hadli cideeda taqaana wallahi intiina halka fadhida adaa ka jira because adiga waa ku aqoon ijaabo dadisneeyay dadkaaga aqaan laakiin qof kale ma aqaano laakiin gabdho talkay inaad wadatiin oo talnimada maya u kala aaminay deeqay inaad talkay wadatiin baanu isku baranay meeshaasaan isku wada baran xishmad iyo ixtiraam baanu kala wadanahay talkana waa u wada simanahay marka ani waxaan idin dhihi lahaa ani mar walbana wanaagan ka shaqeeyaa abaaya ayadana waxbaan u sheegaynaa insha Allah waa la hadli doonaa waxaan dhihi doonaa walaalay dadku haduu ku dhibsan diinta islaamka galina arrimaha uusan ku shaqo lahayn hanoo dayso walaalay gabadha reer Puntland ma ahan hana dayso iyo harti midna ma ahan qolalka hartiga bas bay tagaysaa maalinba reer bay jambalutus maalinba reer bay caayaysaa maalinba gabadha hoosteena kala qolalka hawiyaha ma tagno kuwa isaaq ma tagno siyaasadooda ma falanqayno maya ayadana ma khalad weeyaan hana dayso maalinba reer waxay si shaqo ku lahayn ay ku dhex wareegto waa qalad marka waa la qayaad meesha qayd koontarad qayaadad ku soo qaadatay naagta reeraha anagu ma garanayno ilaahay yaa bunoo